hambalyo marka ugu horeysa waxaan rabaa araygaas hambalyo asalkiisa meesha uu ka imaaday inaan wax yar dul istaago maadaama aan suugaanta afka mayga ka hadlayo. Hambalyo asalkeeda waxay ka imaaday hambal oo afka mayga lagu garab og yahay geedahan caleentood ayaa waxaa xaggaas afka mayga looga garan og yahay hambal marka wuxuu ka imaaday hambalyo. waxaan ka cudur daaranayaa inaan suugaanta afka mayga aan ehelkeeda ahayn akhyaar oo iga roon ay jiraan marka maadaama magacayga la soo qaaday waxaan doonayaa inaan wax yar ku kabo. guud ahaan waxaa ku faraxsanahay dhalinyartan oo halkan isugu imaaday ayna diyaar u yihiin xikmadaha iyo suugaanta afka mayga inay dhegaystaan. runtii ma jiri jirin taariikhiyan in afka mayga iyo kala duwanaanshaha afka Soomaaliyeed guud ahaan in la xiiseeyo oo maaragtay la dhageysto ma jiri jirin marka waa arrin wanaagsan oo aad u soo dhaweynayo. haddii aan gudugalo suugaanta afka mayga oo qusaysa gobonimada waxaa ka mid ah af mayga ku sheegaa kadibna waxaa isku dayay inaa xarfiyan ama macna ahaan u tarjumo. weerta koowaad waxay leedahay una eeba uskunaa awaylo ogaa uskunyaa. yani anaga waxay leeyihiin dadkii mujaahidiinta oo la dagaalami jiray talyaaniga anaga waxaan uskanahay eebe ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uskanahay idinkana waxaa uskan tihiin og ama silaax ama xubka adinka arabtiin ayaa maaragtay uskan tihiin. marka qof oo iimaankaas iyo waxaas ku dhex jiro iyo qof maaragtay xubkaas uun uskan yahay isku meel ma gali karaan. midda labaad waxay tahay kumusaariyow hooy kufaar alinshay kaalmadaana unkoyti. yani waxay ku tilmaamayaan dadkii ogaaladii talyaaniga markaas xaggaas ay gumaysan jireen in ay dalka u imaadeen inay maaragtay dadka ay gumaystaan iyo inay u kaalmeeyaan. marka sidaa la ogyahayna dadkaas deegaanka waxay ahaan jireen dad xirfadooda maaragtay dhagangeliya beerahaas iyo waxyaabahaas ku shaqeeya. marka waxaad u timaadeen uu leeyahay inaad beeraheeni xirfadeeni aad naafisaan oo inoogu bedelisaan kaalmo iyo wax la mid ah. weerta ku xigta waxay tahay talyaani talaadi guuray tolow towantiina. yani talyaani waxa uu guuray talaadadii lasoo dhaafay bal ma towantihiin talow tolkayo ma towantihiin yani dib uu isku xusuusinaya maaragtay talyaaniga markii lagu guulaystay. weerta ku xigto waxay leedahay talyaani sudhulka lantarigow tuugsaga iyo taroornimo dadbaray waana tabi. yani waxyaaba uu talyaaniga dadka u baray waxaa ka mid ah tuugsiga iyo maaragtay sida dhulka loo tarigo oo dadka loo kala qoqobo unba dad baray. marka ugu dambeyn wuxuu ka mid noqday taariikhda Soomaaliyeed buuna tabay. midaan waxa waaye waa mid aad u yaab badan. waxaa jirto talyaaniga dhagan ay maaragtay deegaanadan ay kusoo kordhiyeen dhagankaasna wuxuu ahaa dhagan oo maaragtay dumarka oo jirkooda ku ganacsada iyo waxyaabahaas iyo kalaab inay furaan oo kale. marka xeer waxaa la gaaray dadkii oo laba qof waxaa jirtay oo maaragtay afka suugaanta ku gobaya oo xudur ka imaaday midaa marka waxaa imaaday xamartan iyo meelahan xeebahan uu imaaday wuxuuna arkay waxyaabahaas dhaganka xun oo wadanka uu ka jiro kadibna marka ay saaxiibkiisa xudur ka imaaday marka waxay iska wareysanayaan waxaan halkan jiro in xagga ay jiraan camal ay isbarbar dhigayaan. wuxuu yiri marka ariirow adi xudurku kooytay hanraabta meelo roogda may hay ka haysatan. yani adiga xudur ka imaaday hanraabta ama hanraab waxa loo yaqaan gabdhaha xudur joogo maxaad ka haysataan oo hayeha ogolaashaha marka arabtaan inaa falhun ku samaysaan. dadkan waa dadkii oo ugu maaragtay yaal suuqsanaa markii loo fiiriyo maaragtay deegaanadaas waxayna la yaaban yihiin falkan xun oo talyaaniga soo kordhiyay la yaaban yihiin waa waxa maaragtay zaid u fog. marka saaxiibkiis wuxuu ugu jawaabayaa heydiyaytum teebtun hang ma bahayne heydiyaytum teebtun hang ma bahayne hamiinkosay haatow haye may ku waayan. yani wuxuu leeyahay sida oo xeebahan iyo dhaqamadan ka jiro oo kale ma aysan ahaan jirin gabdhahaas laakiin hal haween camal marka shukaansatid haye waa ka helaysa camal uu leeyahay.
waxaa kale oo jiro bandiirsaar wax oo loo yaqaano bandiirsaar waxaa waaye calin saarka calinka markii la saaray oo xurnimada la qaatay dadka deegaanadaasna waxaa maaragtay badanaa metelaya xisbiya digli marfle loo yaqaano waxay lahayd marka national identity level ay lahayd oo calanka xisbigaas hees u gaaray lahayd marka waxaa ka mid ahaa heestaas dadkun uniilana dooda naadisa diidi ii dab reer koraad deersiya yacni dalkan anagaa iska leh waan u dhimanaynaa qofkii soo huwaystana waxaad u sheegtaan waa diiday iyo dab qoryaan kula dagaalmaynaynaa okay marka waxaa rabaa inaan kusoo gabagabeeyo laba maanso oo midna wadani ay tahay abwaantarash uu leeyahay mid kale hees ahaana loo qaaday waxaan aray ahaana u sheega wax oo tarjumaad guud ah ma ka samaynaa insha allah maadaama waqtigu u dhow yahay middan waxay magaceeda la yidhahdaa walwalba walaagasho ma ah yacni waxaa uu isweydiinayaa waxyaabaha nabadda inoo diiday ayuu wuxuu rabaa inuu baaro markaasuu marka waxyaaban uu ka samaynaya marka wax kasta waxoogii ma aha sidaas darteeda nabaddii u weynay wuxuu leeyahy marka weelkii hindhiyoodii walwalba walaagasho ma ee wala nabaddalan waaye weelka indhiyoodii wanta ka hergelaasi weega ka cabiraasi walwalba weega ka cabiraayaan weelka indhiyoodii wanta ka hergelaasi weega ka cabiraayaan walwalba walaagasho ma wala nabaddalan waaye gurbo weeyaanka guurow waldhan usow usaayi roogo dameer gaadii kuweelen walwalba walaagasho ma wala nabaddalan waaye walgaradka roogo jaahil anii wal ee eri usii wadiidame walwalba walaagasho ma wala nabaddalan waaye yacni hal mar haddii aa kormaro si brief ah weelkii hindhiyoodii oo maaragtay weegada ay ka hargelaysay ama lagu bariisan jiray weelkaas ayaa waxaa loo isticmaalay in maaragtay ay weegu ku cabiraan waagaas dhaqanka waxa Soomaaliya waxaa ka mid ahaa in geela la raran jiray lagu guuri jiray marka waxaa dib ka imaaday in dameeraha la isticmaalo marka wuxuu yaaban yahay waay dameerihii loogu bedelay geela ayuu su'aal iska weydiinayaa midda ugu dambeysana waxaa waaye ayadoo walgorodkii ay joogaan dadkii aqoon-yahanadii ay joogaan ayaa meesha waxaa imaaday jaahiliin sidaas darteeda nabadii aa loo waayey ugu dambeyn marka waxaa kusoo gabagabaynaa saaxiibkay iga dhalnaaqdo humbureereg gabaygan waxaa waaye gabay oo nahdawi ah oo maaragtay dadku ku abuuraya inay fadhiga ay ka kaxaan ay waxna qabsadaan hoo lilaahi haan huburka ii hunshilood hoobishooda habkaadana deegasee baahida geedka hebsida wal hal isweydiiyo horta muhuna huban baahan xabriiraase howo ii mada ma hamiin maalin laka bedeli hoosanaaw hadag laka hiriyaa hurug weerow hogallo qubadaasa xareed saafe webaga humbooyaw lanki hamaarada fadi habuub kusheeno fadi hoo hundiri ay laka hadlaay yani qofkii ka shaqayn lahaa haddii hunduro yaa lagu halaynaa waxaas howshaas yoo qabanaa humbureereg halka ka hoy yani fadhiga ka kaca toohaanoy iska hirinaanoy ay lishal hirnay aan isku duubnaano yaan la kala hirin hal hambal eedi roogda hambuuyaasa haruubko hooku weeldhadu wayn haruubko hooku maaladu wayni galan hoorsilay maahan yira yani hashii oo maaragtay wanta ama caanaha ay lahayd haddii aan wax ka maalan weyno aan meel ka dhigan weyno hadhow marka gacan hoorsi aynoo soo haraayo hoola dhudhunka ka jarte hal aaminoy araada hongoolka hal gaadadoy hagar ii xujo laan hoola hal halaanayoy